appointment kale waxaa igu dambeysay xamar mar hadda sanad laga joogo markii lasoo doortay dowladda lasoo doortay oo waxyar ay joogtay waxaana bil dhaneen ayaa inta imaaday sabtida haddaan soo dhaafnay markaan imaaday isbeddelka wuxuu ka bilowday airportkii waxaan arkay waxa diyaarado oo joogaan waxa commercial flights waxa dadka maaragtay imaanaya dhoofayo aad iyo aad isku bedelay magaalada markaan imaadayna sidiisa lamid ayaan arkay waa idin hambalyaynaa insha allah dadaalka aad samayseen madaxda shacabka Soomaaliyeed diyaar ayaa loo noqday waa la arkay dowlad la'aan iyo dowlad maaragtay meelayn jirin dhibka ay leedahay maanta laakiin waxaan idiin sheegayaa wax inaga rajo fiican gobolka kuma jiro waxa la yidhahda happiness index waxa la dhahaa iska jira waa rajada iyo farxadda ay shacabkasta leeyihiin Soomaalida ayaga ayaa ugu sarreeya hadda meeshan hadda Horn Africa anagaa joogto wadamada kale oo dhanbo wixii idinka aad 30 sano ku dhow horteed aad soo marteen burburka aad soo marteen ayaa hadda mid qarka u taagan iyo mid asagana ku dhex jira iyo waxyaabo la mid ay yihiin marka waxaan rajaynayaa in horumar la gaaro aan caadi ahayn waxyaabaha aad si degdeg ah oo soo kabsan weydeen Soomaalida waxa lagu yaqaan inay yihiin shacabka mise ummadda mise dadka adduunka ku nool dadka ugu the fastest learners marxalada hadday galaan haddii maamaro lagu sameeyo haddii loo tashado dadka si degdeg ah markiiba u fahmi karo in loo tashado inay yihiin laakiin dee cadowgii idin hayay ayaa aada u ballaarnaa ilaahay baa wuxuu inagu beeray wadnihii adduunka ilaahay inagu beeray maadaama ay Soomaaliya tahay wadnaha adduunka literally the heart of the world oo intana Suez Canal ay tahay intana ay tahay sea lands mise sea routes u kacay the major industrialized countries sida China iyo India iyo Japan iyo Korea iyo waxa laga soo qaaday intana North America iyo South America Atlantic si fudud looga gelayo Southern Africa Mediterranean oo Suez la mariyo dad kastaba haddii loo eego ilaahay baa wuxuu ugu beeray wuu meeshii ugu fiicnaa adduunka oo qoom lagu beero inta waxaa wehelisaa khayraadka ilaahay uu siiyey oo waxa dhulka hoostiisa ku jiro carrada hoosteeda ku jiro iyo wixii badda ku jiray potentialka uu leeyahay oo biriga laga soo saari karo awgeed waxa weeyaan adduunkani wax soo ogol ma jiro waad garanaysaan 70-meeyadii Cold War-gii waxay noqotay Somalia one of the victims of the Cold War waayo shuucigii iyo kapitalistiga way ku tartameen markii u horreysay markii dambena way u heshiinay way iswataan wadan maskiin oo adduunka saddexaad oo labada quwad oo adduunka ugu weynayd ay u heshiiyeen Ruushka iyo Mareykanka oo ugu horreeyay Soomaaliya haddana ilaahay baa ka soo samata bixiyey rajada way fiican tahay wadan kasta hadduu hataa uu noqdo sidii Mareykanka oo kale oo si kastaba dhaqaalo u leh oo si kasta loo oran karo stable weeyaan لازم وقوا قنص هايستيو برلمان هايستيو برلمان يبحيه الاكزيكتيف السمامل كسهيانيو judiciary oo doonayaan inay to legislate from the bench waa push and pull waa iska typical phenomena in all meel kasta oo dhan ay dawlad ka jirta midda mar kasta way iska jirtaa wadanaas aan buuq iyo qalalaasan maartay siyaasad la isku haysta adduunka ka jirin malaha tiidankeena haysta maal dhawto kale Mareykanka way haystaan Donald Trump Republicans Democrats liberals conservatives Christian right maxay ahayd wuxuu dhan waa la haystaa Australia baa la haystaa waxaa la isku haystaa wadanka hadda idin sheegay Korea South Korea
وكي هذا مدحوينيه هوري محكمة لسو جوجيي وقبلني أبهد بوها نكي باك جون هي لوريتشري أو وطن كاسيتو هرمركيسي أبوها marka waxaad u aragtaan wax kasto idin imaato caqabad wax sidii loo gudbi lahaa la fiiriyo oo picture-ka weyn ayatiinka dambe iyo wadanka si uu meel u gaari lahaa markasta markii la isriixa oo la tartamo oo ay ku sigatay in maartay gabi laga hadaan laga dhaco waa in la isiraahdo warmeeyahay wadanka naga weyna let's go back let's pull back sidii maalin dhacday oo kale oo executive-kii jawaarigi intay heshiyeen maartay wixii ay si la rabay ay u sameeyeen dowladnimo waa cunug yar oo dhashay weeyaan oo la isku haysto oo nin kastoo aabbe inuu noqday uu doonayay gabar kasta inay hooyo u noqotay doonayso wiilkaygii waa liga xaday oo aniga aan dhalay oo anoo markaa kursanayo asagoo 7 maalmood jira حلقة هذا يسوي سنة جرو حلقة هذا ويسكت على هدوك مال كستم هذا كور وحنقول ما هو نري أردت مرحلة ضد الصومالية كجرت فهويا هذا كور يصنع عليه أو من أميره هو مدح أو بقري هي الله وجب دودو يسكت يستاهل كعنق الله كان أنا وانا لبيتي أنا وانا لبيتي كرتين برجع أنا DNA وحبتشير markaas yiri waan tanna waxay sheegay oo maalinkaas allahana waa isku mid wixii way soo eeg tahay qof kasta markuu hadlo waxaad moodaa inuu gartaas ay ku taagan yahay sida badan ay u dhacdo qalalaasada iyo iska horimaadka siyaasadda ay u dhacdo boqorku wuxuu yiri warka fudud oo ninahay waxa weeyaan cunuganayto waxaan u qaadanaynaa toori baan u qaadanaynaa laba dhaxda ayaan kala goynaynaa nusna adaan ku siinaynaa nusna tan kala siinaynaa والله بدي قبضه كويس تيدا الشيء أو نبت هذا وحيد تري نسي مسيرة يصير يجدا وذا السي بدل فرعون قدي من لها هكور سطي هذا سيوم بيهدوا إلهي وكان يقدونا أنا قد عليه ونكسونه تي كان أنا وحيد تري هنا لوكل يقول عنق والله بدي أحد الله ورفت إذا نصلى سي تنا نصلى سي ورت دولة ماذا واسدة ninka wadaniga oo meesha ugu fiican jooga markii la iska qabsado waxa loo baahan yahay in la tanaasulo kuwana ay wax ogolaadaan kuwana wax ogolaadaan meel dhaxal isku yimaado laakiin xariga aan kala goyna hadii la yiraahdo oo meesha ugu dammaan isla gaarno hadii madalig iyaga soo bixin wadankaasay waxaan aad ugu faraxsanahay testigii mise imtixaankiina soo maray maalin dhawto inay sidaas oo kale ku dhacday oo labada dhinac lagu heshiiyey oo maartay laga gaaray xal hadda badbaado wadankana u noqday ayatiinkiisana rajada soo kordhiyo weli ay si fiican u socoto waxaan idiin sheegi odaygii maxamed siyaad bah ilaahay u naxariistay wuxuu odhan jiray soomaalida wax habaar ku noqday markii dabar iimaanka laynaga qaadbudhihi jiray marka waxa uu ka keeni jiray dhaqasho iyo wax badan oo xanuun oo asaga hay waxaan u malaynayaa tiibaa markaa muddo dheer ilaahay uu dhab nooga dhigay oo soomaalida ilaahay iimaan ka qaaday laakiin alxamdulilah hadda ducadii waa in la badiyo ilaahay iimaanka ku soo celiyo adigoo madaxa waa inaad u ducaysaa dadka kale ummadaha kale oo islaamka haddaad aragtaan sacuudiga ninka tegey xarabka maalin kasta waa looga duceeyaa dadka xaakimka oo xukunka hayo mise maamulka hayo anagana kuwa anaga mar kastaba haloo duceeyo waan u ducayn khayraadka ku jira soomaaliyana waa tii haddaan idin sheegay annagana waxaan nahay dad badan baa waxay odhanayaan faarax waa wadani faarax waa nin soomaaliya faarax waxyaabo badan oo maaragtay oo ammaan ah war heedhaha nafti baa noo geysay idinka haddii waxba noqon annagana waxba noqoneen marka annagaa isu dagaalamayna idinka kelina ma dagaalamayo annagaa naf oo doonayna inay sharaftiina soo noqoto sifa annagana meelaha aan ku noolnahay gobollada wadamaha kale ka midka oo Soomaali ay maaragtay ay wada degan yihiin in maaragtay aan sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam iyo wax badan oo maaragtay nalooga heersan baa jira haddii ay wadankan uu maaragtay uu
cududdiisa iyo sharaftiisa iyo xooggiisa iyo magaciisa iyo qabkiisu soo ceshay marka waxyaabahaasayto ayaan maaragtay aanu ku xisaabtamahayna annaga waxaa kaloo idiin sheegayaa maanta waxaydan dhaamaba gobolka ma jiro haddii jirana wuu yaryahay aad buu yaryahay sidan haddaad ku socotaanna waxaan aaminsanahay 6 bilood oona la gaarin wax weyn inuu iska bedeli doono Soomaaliya hala isu sabro xaalka degdega marka lagu jiro mise emergency-ga lagu jiro oo dagaalka lagu jiro sida maaragtay xalaasha oo dimuqraasiyada ay u shaqaynaysay maxkamadaha u shaqaynayaan markuu waddanka u degan yahay ma dhacayso maraykanka markuu ku duulay ciraaq waddan yaroo adduunka saddexaad oo maaragtay maraykanka 5,000 oo jeer uu ka xoog badan yahay haddana wax kasta oo dhanba waxay noqotay inay dowladda la shaqeeyaan baarlamaanka dowladda la shaqeeyo miidiyaga ay dowladda la shaqeeyaan oo embedded wax dhaha lagu sameeyo wixii qoran lahaa bay qorahayeen wixii dhabta habeen qorayn waxa qoran lahaana waxa weeyaan wixii dowladdii iyo qarankii iyo maaragtay magaciisa iyo sharaftiisii lagu difaaci lahaa hadduu dad badan ka dhinto dadka way dhinteen lama odhanayo wax kastoo dhanba waxa weeyaan in run laga sheegay qasab maaha hadda ka horba waxaa lagu yidhi nin madax ahaaba wuxuu ku yidhi dadkiisii wixii qola xabashiya ay ku wareegayso gobolka Soomaalida ay degan tahay ay hub doonayso waayihii maaragtay ay gumaysi kusoo rogayeen ay wuxuu yidhi war dowlad baan haysaa ciidankeedana naga xoog badane hubkana qarsada hana sheegina iyaga oo joogaan meeshii ayuu ninkii madaxda ahaa waxaan u malaynaya nin uu awow yahay inuu inta fadhiyo maanta ayaa wuxuu yidhi caawi inuu inta fadhiyo wuxuu yidhi annaga hubna ma hayno waxba ma hayno waxaan nahay dad raaciyad ahoo maaragtay idin aysan baan nahay oday kaloo adeerkii baa wuxuu yidhi oo sheekh ah anigu waan soo gaaray odayga tuusan dhimaan asagoo Ethiopia ka imaaday oo noogu yimid soo gobolka Soomaalida ka yimid oo noogu yimid Nairobi Garis wuxuu ilaahay ballankii runtaa ilaahay igu og yahay anuu mid baan haystaa buu laakiin iga halawsan yahay inay hagaajin karaan bal ii weydi buu ninkaas inta awooga wuxuu ku yidhaahday oo runtaada waa mid doona leh biyo runtaada waa mid doona leh lama baahna maanta runtaas macnaheedu waxa weeyaan mar kasta runta looma baahna dowladnimada lagu sheegi waa khadaaca dagaalka waa khadaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi alxarbu khadaaca fasameen marka waxa weeyaan waa dhagar iyo sir iyo wax kastoo kale weeyaan dimuqraasiyaan ku shaqaynaynaa waa in sida la sameeyo waa inaan isku sii daayo wadamo jiraan oo waddanka may gobolada horta magacyaha ka bedela meesha maamul goboleedka aad ugu yeertaan madaxweyne waxaad ugu yeertaan governor sida annagoo kale waayo wax aan adduunka ku shaqaynayna Soomaali kale kuma shaqayn karto dastuurka iyo nidaamkaana waxaa ka shaqeeyey inta Soomaali cadawgeeda ahayd ayay ahayd governorka annaga hadda joogo oo gobolka maamulo base governorka maamula gobolkii ugu weynaa Mareykanka oo California la oranayay intuu iska soo duula ma imaan kara xamar oo madaxweynaha intuu la fadhiista farmaajo la sheekaysta base prime minister khayre base Nairobi intuu imaaday Uhuru iyo Ruto intuu iskala sheekaysta iskama tegi kara maya lama xiriiri karo waddan kale oo ajnabi isaga oonan ka haysanin permission ka haysanin dowladdiisa wasaaradda arrimaha dibadda madaxtooyada ka haysanin isagoona uusan caddaynin oo justificationkii oo dhan uusan sheegin sababta u tegayo waddan kale oola tegayo oo haddana aan lagu biirinin wafdigiisa dad ka socda dowladda meeshana in jaahil lahoo aan aqoonna lahayn oo shalay wuxuu yahay ilaahay og yahay waa ordi odhanaya imaaraadkan la soo sheekaysanaya imaaraadkan cadowga Soomaalida iska cadda أنا سيب بدتين أنا يدي شيء أنا مدحوين أنا كل تير كان صار الله هل كورة كم تجين خائن الوطن traitor to your own state وطن عدو وهو وطن كذا ربي إنه تكذا هو ذاك عطى كل جوا أو كم يستو أياد أرتي ساوى الله هاي وحرير بالله صغيرنا كذا صعطة
inteed u socotaa inteedna ka socota baarlamaanka soo jeediya sharci inta hadda aniga aan sheegayo odhanayo qasab weeyaan in laga qaato ogolaasho wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska madaxtooyada head of civil service shaqaaleynta ka weyn shaqaalaha inuu u ogolaado ninka dhoofayo annaga hal nin oo civil servant oo technocrat oo ka bixi kara waddanka ma jira isagoon aan la siinin aanan la siinin permission to travel outside clearance bal dhaha so clearance la siin wiilkayga waa dhakhtar waa consultant surgeon xasaskayga mid kamid waa dhakhtar ma bixi karaan waddanka kama bixi karaan iyaga oonan maarata hataa xajkii cumrad markay u kaceen waa inuu kacaan wasaaradda oo la siiya clearance iska daa ninka weyn intaasoo wasiir iyo wax ka lamid iyo nin baarlamaan ku jira maya you have to inform marka hadda annagana dhibaatooyinkaas ay idinkiidan haystaa Soomaali haddii aad tihiin waa in xal loo helo waa in xal loo helo waa in xal loo helo ina Zaid محمد زايد والله أنا خليفة نهيان ويلكيسة سما كان هذا بدي بهاي أنت حول فدي ما أحسن عليك ما كتك حال وضع سكر الصومال اللي بيجري و الديفايد ديسكريبشن وحتى الله غفر الله كرما هذا الدون كنيتو دولتها يكون شقيان وحكب أحسن من أنا وكل شقياننا ما لك تعذر من هدوك ونوم ودكينا سكتة عدونا كسكتة عدو الدبدة عدو وكل شقيسنا يقودها ما يلقوا فرصة ما يلا اسم مالي كرمالها هل كنت تذكرتك صارت كنت هيك بحيه قلبك وردين انت لغا بخا ilaa iyo ma la gaari karaa meeshii maxay magaceeda cadaada ma lagu tagi karaa iyo Soomaaliya ma kaliya ba hadda wadada Soomaaliya al-shabaab ku bixinaan meel kasta eeganaya cadawga Soomaaliyeed iyo ajnabi ku adeeganayaan intii laga baxay Kismaayo lama tagi karo maxay dobli hatta afmadoo lama tagi karo dhaxday ku jira meel isku dhaafi kara malaha لكن هذا نبى اسكو شيء امام الجولات انه يهدكده انتو كنوفو مغالada نيروبي u tago bas xamar u imaado oo diyaaradu u keenay waliba ay hadana diyaarad kale ku dhoofayo ajnabi la soo tashanay la soo sheekaysanay maxay noqotay wadankii ma sidii South America oo meelihii drugs ka laga shaqaysanayo drug lords ay joogi jireen badadii way dhamaatay kaarba ku dhacday oo environment-ka Soomaaliya waxay noqon doontaa lama degaan desert way noqon doontaa sanad ku socdo لحوشي بقى أرسلنا هي العربتي أو فوح من سري كربصار هاي استسير دمرتي أو كلا ربع إنه وكون صدق هذه بحياة لحوش هذه جيدة هذه كون كسنة جرينا ولا تدبرين هي ولا تدبرين هي جيدة أو على صارية أركب الدوم على صارية أو الناس الدفاعي كل قبل الصومال هذا بلغته فينا هذا كلام دونا هو ضرنا هذا هي جبل هو ضرناتي أركب حنين شيء waddankiina soo ceshada waddannimaa loo baahan yahay anigu inaan ma oranayo nin jeclaysi shaqo ku melihi aniga sheekh shariif waan soo garab qabtay berigii anigoo rajo badan ka qabo maxaakiimta ayuu weynaa حسن الشيخ مركو إيماني تعليمتي شغل في عنك قبتين أصدقي يو من هذا اللي إلهي ونحرسون صاحبي أبدون لوريتشري فارع عبد القادر يو فهد كان هذا يضد ضدن وفركي عن إسبرني وكان أوقي ماضي برماجي مركو برايم مينستر كهايو عيد ماذا سبي عن رقعوية شيء فهد أقوم معنولة يا سوير ولا باطن ومركا جري يعني إسبرني ومارتي وشقي جري وديك هلي هلد الدول الله يبني هذا حسب خيري وحكا شقيني ماشي أنا قال لي قصوا دورتين دا بس هو نويجي ريفيجي كانسل شقيني
in kasta markii waxaan anigu markii hore isku garanay rajada aan qabay haddii ka duubnaado oo meel kale cali maxamed geedi saaxiib baan ahayn waxaan ahay ninka cali maxamed geedi intuu ka dhaadhicinin inta hadda fadhiya inuu kursiga oga dego markaasuu cabdullahi ism wuxuu igu yidhi ninka ad leedahay kursiga oga dego cali maxamed geedi waa daarood cali maxamed geedina waa hawiye frustrator 4.5 baa lagu qabsaday markaasi u geliye marka dambena ilaahay baa noo fudeeyo ninkii marxuumka ahaa maxamed deere ayaan ogolaaday intaan la hadlay anigaa ka soo saxeexay weliba uu soo galay mid kasta markaan arkay base shaksiga aan u arkay haddana inuu qaayin wadan yahay meesha baa isku kaadambaysay anoo tafaasiisheeda gelin kullina nin kasta si buu ammaanan yahay cabdullahi yuusuf hadda kahor geri waan ugu tegay anoo soomaali doon iyo sharati inay soo noqoto xabashidii markuu waddanka soo gelay nocol baan noqonay markiiba cali maxamed geedi markaan arkay inuu xabashida hoosta ka jira hadda nocol baan noqonay waanu kala tagnay markiiba xasan sheekh maxamed markuu ka tegey jijigo oo ay noqotay ninkii qaranka xamar ka tegey nin gobol kale haddana tegey waxaanu yidhi sida xabashida ay rabto xamarna waa un gobolkii lixaad gobolka toddobaad bay caynkaasaan kuwan hadda waxay kaga duwan yihiin oon isku ognahay oo hadda inoo muuqata ilaa ay haatan hatooyana kuma aragno oo qarankii maaragtay hantidii dadweynaha oo lagu duunayana ma aragno isbeddelna waan aragnaa ciidankii baa dhismahayaa waddankii baa kor u soo socdaa sharaftii dibadda wadamihii gobolladii meelihii la iibsaday dekedihii wax kasta oo dhanba oo dad ajnabi u qaatay way daba socdaan wax badan oo ku jeclaan ayaa hadda iga muuqataa waxaan isleenahay aan garab siina annagana aan garab soconno ilaa guusha rasmiga la gaaro waxaanan ka ahayn danta ummadda soomaaliyeed oo annaga nawalaleynaysa ma jirta iyagoo dhan laakiin inta aan rajada ka qabno danta ummadda soomaaliyeed garabna oo noqonayna waana garab istaagayna ummadana oona sheegayna waxaan leenahay war kuwan xoogaa lagu jeclaado oo kuwii kale ay kaga duwan yihiin baa jiraaye bal horey aan u wadna insha allah ilaahay inuu guusha uu iyadoo kaamilan oo dhammaystiran aan ku helno hadalka idinguma dheerinay waa wakti dambe weeyaan adiga raalli ahaanaysaan nin waxaan ahay maaragtay inta badana wuxuu sheega asagoo la gabanin sheego laakiin ilaahay baa iga sarreeya wejiga ilaahay baan idin maartin ilaahay lama maran gashado inaad run sheegi ma ogiye wanaagga soomaaliyeed baa aniga keenaa intaas iga qaylisiinaya wax ka duwan intaa ma jirto waana aragnaa hadda light we sing light at the end of the tunnel insha allah biidni illahi albaari annagana noo soo ducee waddanka annaga maalinkii anigaan baarlamaanka soo galay oo 92 maanta dhexdooda isbeddel badan baa ka dhacay waxaan noqonay dad hadda waddanka wax ku leh baan noqonay berigi hore xukm aanu lahayn dad la xukumaanayaan oo laleeyahay ilaahay ka sako meelaha kale oo soomaalida dhibka ku haysatana ilaahay baan u baryaynaa kuwii hadda etoobiya inta hore oo dhan gumaysi ay ku haysteen haddana nin oromaa imaado asagana ummadiisa la gumaysan jiray oo la addoonsan jiray waxaan isleenahay kuwii hore uu ka duwnaan doonaa hadduu ka duwnaado waan soo dhaweynana hadduu ka duwnaan weynana meeshii baan kaga wadeena asaga waa liska celin laakiin soomaali dad maaragtay wiinka oo igu soo orade maaha insha allah qabkina wuu soo noqon alool adeega kii la yaqaanay buu ahaa wax abuurkana waa la yaqaanaa muddada ugu yarna waxay noqon doontaa waddanka gobolkan oo dhan ba ugu taajirsan oo uguna xoog badan insha allah biidni illahi albaari markaa saasaan isku ognahay aad baad u mahadsantihiin cashadan